si kooban waxaan jeclahay inaan fariintan u duubo dad fara badan oo runtii werwer iyo walbahaar uu ku hayay dhibta iyo dhaawacii dhowaan igu dhacday warkaygana aada u naawilayay inaan fariintan ugu sheego inaan caafimaad qabo inaan wanaagsanahay in xaaladeyda hadda aada u wanaagsan tahay wixii igu dhacayna aan ka soo dhayday iyagana aan ugu bishaaraynayo dadka ay jecel ee walaalahaya ee dalka iyo daafaha dunidaba kala jooga inaan wanaagsanahay anugu dalkuna wanaagsan yahay dadkuna wanaagsan yahay xaaladeeduna hadda ay fiicanta waan awoodi kari waaye runtii fariimaha tirabeelka ah ee dadku ay jeclaayeen inaan uga jawaabo sida kala duwanii soo gaadhayay inaan qof kastaba sidiisa ugu jawaabo laakiin inaan wanaagsanahay oo xaaladeedu hadda ay fiican tahay inaan u sheego unbaan jeclaystay kelmadan kooban inaan u qabto intaa kadib waxaa ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay dadkeenna bogooda burcad isku mariyo inuu ilaahay dalka inoo wanaajiyo inuu ilaahay dunida waxaynu ka raadin nooc ictiraafa ilaahay naga siiyo mar labaad iyo mar saddexaad waad mahadsantihiin intii ila damqatay intii dareenka gaarka ay haysay intii runtii dareenaysay xaaladayda aad iyo aad baan u wanaagsanahay intaasi waa kelmadan dadkaan leeyahay mahadnaqaa kadib waxaan arkayay oon doonaya inaan kelmad kooban ka yidhaahdo qoraal ciidanka boolisku ay soo saareen oo laygu magacdhabayay ummadda somalilan way la socotay runtii oo maqal iyo muuqaalba way ku arkaysay dhacdadii dhiilada lahayd iyo dhibtiiyo dhaawacii guud ahaan soo gaadhay mas-uuliyiintii madaxdii kala duwaneyd ee xildhibaana lahaa oo xasaanad huwan oo madax xisbi lahaa oo musharax madaxweyne lahaa waxaan isweydiinayaa markay baadhis bileysku ay sheegayaan sababta baadhista uga bilaabi waayeen ninkii sarkaalka ahaa ee bartanka magaalada beerka kaga laagayay qofka dumarka ah ee sharciga islaamka iyo qaanuunada kale dunidu ay ku dhaqantaaba xurmo iyo xuquuq gaara ay siiyeen dhaqanka soomaaliyeedna birmageydo liiska dumarku ay ugu jiraan ninka xidigaha ku jeenay qaaran ee dhibta noocaasa qofka dumar ah iyo dhaawaca u geysanayay kow muxuu isaga horta baadhista sharcigu u qaban waay waxa laba ah nimankii xabadaha ridayey ee amarada la siiyey ee xildhibaanada xasaanada le ku ridayey ee mas-uuliyiinta kale xilalka haya ku ridayey ee dadka shacabka ah ku ridayey maxay iyagu baadhista u geli weyday waxa saddexa musharaxii dhanaaye madaxweynaha oo muuqaaladiisii la arkayay ciddii soo maleegtay ee doonaysay inay gawaadhida jiirsiiso sababtii iyaga baadhista u geli weyda maxay tahay waxa su-aal kale ah xildhibaanada xasaanada leh ee la dhaawacayay ee la dhibayay ee xabad loo isticmaalay weliba la xidhay ciddii hintaa geysatay maxay baadhista u geli weyday si kooban xildhibaan food imanka turkiga dhakhtar ku yaalla baa lagu dabiibaya xuubka dhagaha dilaacay oo ilaa maskaxda gaadhay ciddii dhibtaa geysatay maxaa baadhis loogu samayn waaya waa su-aalo loojiga oo jawaabtooda iyaga looga baahanya shakhsiyadayda anigu medical reportkayga dhibtay gaadhay ee dhaawacayga
goorteeda iyo goobteeda nin caddayntiisa haystaba marka loo baahdo laakiin in lay magac dhabo waxay xaqiijisay tuhunkii hore aan u qabay ee ahayna bartilmaameed ah tiraba 10 xildhibaan baanu ku joognay meesha maxaan gaar la igu soo socay waa su'aal isweydiin mudan dhaawacayga dhibteeda cid kastaba uu ogeyd maxaa dadka kale dhaawacmay ee xildhibaanada kale ee xabadu ku dhacday ee xildhibaan Xuseen Aadan ka mid yahay loo magac dhabi waayay maxaa loo magac dhabi waayay xildhibaan Food maxaa loo magac dhabi waayay xildhibaan Maydhane tuhnadii jiray ummatani daliil ay u tahay dhowaan bay ahayd markii anigu aan ka hadlay dood golaha baarlamaanka dhexdiisa ka taagnayd oo ku tacalluqday dhibaato ay la kulmeen xildhibaano xasaanad leh oo xildhibaan Maxamed Abiib iyo xildhibaan Axmed Khaliif ay ka mid yihiin oo lahaa cidda handadaadii hanjabaada joogtada ah xildhibaanada xasaanada la ku haysa waan sharciga loo soo joogsi xildhibaan xasaanad leh oo lagu leeyahay muwaadin matid oo lagu gafayo oo wax kasta lagu lahaa ayaanu ka hadal ilaa maalintii ilaa maanta wixii aniga leeyagu hayay ma jeclin inaan dadka iyo dunida u sheego nin weyn baan ahay oo mas'uula nin dalkan jecel baan ahay nin dalkan iyo dadkan u dooda baan ahay nin dawladnimada Soomaaliland inay qiimo yeelato jecel baan ahay wax badan waxaan u liqayaa mas'uuliyadda ay saaran dhagxumada iyo dhaawaca qarannimada gaadhaysa ayaa xogo badan oo haya maanta aan bartan ka sheegin laakiin haddii la igu kalifo ay noqon doontaa inaan shaaca ka qaado oo ciidamada booliska ay qayb ka noqon doonaan ciidanka boolisku waa ciidan sharaf leh waa ciidan aan jeclahay waa ciidan dantooda iyo duruuftooda baan ka hadlo waa ciidan aan u damqado waa ciidan dareenkoo aan u hayo iyagu ay ogyihiin laakiin waxaan wadaa waa afraad aan ogahay markeeda iyo madasheedana waan sheegay waxaan saa u leeyahay waa kii abwaangaariya lahaa adoo wax ka goos qabsaday mar baa gafka loo liqaa inaan danta guud murgacan maansadiisi gurmad waxaan tusaale u soo qaadan karayaa oo dadku isweydiin karayaan muxuu barkhad inuu taarged yahay in waxaasoo dhiba ay gaadhayaan hay-adaha biliiska ugu dacwoon hal kiis oo kiisaskaan la kulmay ka midun baan doonayaa inaan ummadda la wadaago dhowaanun bay ahayd markii ninintii igu hanjabay dil toogasho ah moobiilkayga fariin iga soo diray CID-da aan geeyey magaciisii la gartay meeshuu jooga la gartay deegaankiisii dadku ka soo jeeda la gartay wax laga qabtaa inaysan jirin hay-adda biliisku waa hay-ad bulshada u dhaxa waa hay-ad inay faragashato arrimaha siyaasigu mamnuuc ay tahay waa hay-ad amniga u xilsaaran waa hay-ad loo tababaray ilaalinta amniga ummadda ka ilaalinta cadowga laakiin cadow ku noqoto kuwii iyaga xaqooda ka hadlayay waa afiyo iyo aan firiir kale ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan bayaamiyo mas-uuliyadda aniga iga saaran doorashooyinka si ay ummadda Somaliland iyo dadka dunida ku nooliba ogyihiin doorashada Somaliland iyo dimuqraadiyadeedu midhahay dhaleen ana kowka dawladnimadeena iyo dastuurkeenu doorashada keeneen waxay noqotay mid aynu kaga gudubno hanaankii qabyaaladda iyo qabiilka oo qarannimada u gudubno waxaan ugu tusaale u ahaa muwaadinka Somaliland ee dhalinyarada ah laas qoray ilaa loo yacdo jooga inuu han iyo himiliye hiigsi hogaamineed yeelan karay inuu damciisa iyo doonistiisa ka dhabayn karay inaanu ku xili karin qabiil iyo qabyaalad inuu hab qarannimo qofku wax ku raadsan karayo saani rajadaasi u dhiman si qofku xaqiisa doorasho iyo dooniseed uu yeesho si uu qabyaalad ugu gurbo oo qarannimadu micnaa ugu samayso waxaasoo dhan waxay ku imanayaan in dastuurka la ilaaliyo
in doorashooyinku waqtigooda ay ku qabsoomaan rajaday dhalinyaradu leedahay waxa weeyaan inay tartan galaan taasina waxay noqonaysaa in dhib badan loo maro taas aniga mas'uuliyadda ka saaran tahay iftiinka iyo rajada dhalinyarada Somaliland u soo baxday inaanay damin oo doorashooyinku waqtigooda ay ku dhacaan taaniga gubaysa ee shidaysa horta waa taa waxaan rajaynayaa Somaliland qurux badan Somaliland dunida ictiraaf ka haysata Somaliland ku naaloonaysa cadaalad iyo sinaan iyo horumar aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad. Wassalaamu calaykum.